السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سكسونا قد وناكسن صاحي بيال halkaad iga daawanaysaan waa youtube channelkayga sheef cabdalla muxya haddii ay tahay markaa ay kugu horeysay nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada ku xiran channelkayga haddii aad hore u joogtane sharafaad leedahay aada u mahadsan tahay vlogga maanta waa laba kalaasaa leenahay kalaas practical ah oo jikada aa galayno iyo kalaas lecture oo muxaadaro ah macalinka aa dhegaysanayno so maanta jikada markaan galno wax saas u sii badan ma samayn doono kaliya waxaa samayn doonaa salad oo aan ku tartami doono barnaamijyada ma aragtay chef Ramsay waxyaabahaas ay sameeyaan camal intaasoo daqiiqadooda haysatiin macalinku wuuna tusinaa horta kow kadibna anaga ma aragtay ku tartameena qofka saxankiisa uu qurux badnaadane waxaa la siin doonaa extra credit ah marka insha Allah waa isku day doonaa inaan dadaalo oo aan ma aragtay noqdo qofka credit kala siin doona duu ilaa yiraahdo insha Allah isla socod wanaagsan let's go kalaaskeena ugu horeeyo waa kalaas lecture ah ama muxaadaro ah kalaaskan waxaa la yiraahdaa culinary essential yani waxyaabaha aasaasiyaadka u ah culinary waa waxa baranayno ama faculty-ga cunto karinta aan baranayno kalaaskan waxaan lagu barayaa sida midiyaha loo qabsado sida ma aragtay wax loo jarjaro يعني wax walba jarjaraysid qaab loo jarjaray leeyihiin basasha iyo baradhada isku si ma loo jarjaro yaanyada iyo karootada isku si ma loo jarjaro kalaaska markii lecture-ka noo soo dhamaaday bareegan yar qaadanaaye bareegayga maanta gaariga kuma qaadan awal gaariga ku qaadan jiray qabow banaanka ka jiro waxaan dhahay intaan gaariga u sii socdo qabowgiisa iyo xaasiita u gambiyo kalaaska bareeg iskaga qaatay quraacdii asaaka soo qaata iskaga quraacanaaye alxamdulillah markii quraacdeena aan dhameysanay toos jikada u aadnay jikada markaas soo galno waxa ugu horeeyo aan sameynayno oo macalinka naga jaag gareenaayo hatta dhibca ku weyn karno waa alaabtan apron-kan inaan xirano iyo inaan gacmaha si fiican iskaga dhaqno hygiene waa number 1 tana ku soo xigta haddii aadan xiranin ama koofidaadana aadan xiranin dhibca laga goosanaya waxaas taawalkaas aan meesha ku xiranayna waxa ma aragtay uu naga saacidaa inaan gacmaha dhow markaas ka soo qoyn inaan iskaga tirtirno oo ma aragtay u qalajino iyo sidoo kaleetay xariga inuusan ma aragtay digsiida aan wax ku karinayno uusan nooga dhigin oo aan ku kufin ma fahamtay kadib macalinka toos ugu tageena waxaan la tusinayay sida midiyaha loo afeesto midiyaha laba qaab loo afeestaayo niiri qaabtan birta dheer iyo sidoo kale mid dhagaxa lagu afeenaayo fasalka markuu saas ma aragtay jikada markaas u soo galno wax ugu horeeyo aan sameynayno aan ka bilaabno waa midiyaha in la afeeyo kadib macalinka wuxuu na tusinayay yaanyada sida loo fiiqo yaanyada intaan la fiiqin ka hor waxa ku sameeyna horta biyo dabka soo saarno oo kulul hal daqiiqo yaanyada ma aragtay ku deynayna kadibna waa ka soo saareena waxa gelinayna hadana baraf yani biyo baraf lagu daray kadib isagana hal daqiiqo amal ku jira kadib midada yarista soo qaadanay yaanyada iyada fiiq ku dhaxayso oo tartiib u fiiqmaysa kaaga ma baahan inaad qasabtid hilibna kaama soo raacayo yani hilibku waxa ka wada waa yaanyada qaybta jilcan qobka waxa ku xigo kaama soo raacayo hadda steebadaas aan martid kadibna waa jarjareena waxa dhaxda ku jiro oo miraha iyo waxyaabahaas oo dhan waa laga tuurayaa maadaama salad lagu darrabo saladka uma baahnid in yaanyadu sideeda ugu wada darsid dadka qaar oo ku darsadaan laakiin horta ani Cabdullaah aan yaanya saan isoo dayaysa ma cuni karo horta laakiin hadii maqaayad asar fikreenaysid waxa aad cunaysid wixii dadku cunayaan waa laba kala yihiin marka qaabkaas loo jarjaraa wuuna tusiye hadhow wuu naga jeeg gareenaya oo ma aragtay wuu naga fiirinaya wuxuu isaga sameeyay step walba uu sameeyay alxamdulillah aniga horta waxa ku dhasay alaab inaad duubo mar walba macalinkana waa weydiiyay inaad duubi karo semesterka markuu bilaabana okay uu yiri waxa labaad ee aan ma aragtay jarjareena waxa tahay waa digirtaas ama beans qof walba soo yaqaano and then sida yaanyada aan ku sameeyna camal exact lagu sameeynaa oo ma aragtay waxa geenaynaa dabka biyo kulul ku rideena hal daqiiqo and then kadib badana waxa ku rideena biyo qabow oo baraf leh oo ayagana hal daqiiqo ku sii deynayno yani qaabka yaanyada u sameeyno baa u sameeynaa wax ay ku kala duwan yihiin kaliya waxa tahay midna waa yaanyo midna waa digirta marka idin dhahaayna digirta markii oo ba aragtay caadi cambuul ahaan loo sameeynayo alaabtan way kala duwan yihiin alaabtan saladka lagu darsadaa aan salaatada so wax walba oo isaga uu sameeynayo qaab walba isaga uu sameeynayo inaa u sameeyno waa tan dabka idin sheegay hal daqiiqo biyahaas kuleelka ku haynaysa 1 minute ka badan
ma hadaa ku deysid waa kaa karsamay inay karsantana lama rabo adag inay ahaatana lama rabo kadib biyaha waa kasoo bixinayaa waxaa ku ridayaa maaragtay maxaa la dhahaa biyo qabow oo baraf leh kadib biyahaas qabow oo barafka leh ayagana 1 daqiiqo ugu jirayaan daqiiqad kadib waa kasoo saare diyaar ku tahay ansalaatada aad dusha kaga darsanaysaa ama caadigiisa cuni kartaa waxyaro oo cusba iyo alaabta sidii korka loogu daro beelaba kadib bardhada sida loo jarjaraayo na tusiyay oo cube kaasi ta maaragtay ka dhigaysaa kadib ayadana biyaha ku dhaxriday bardhada sababta biyaha loogu dhaxriday waxay tahay inay qalasho la marabo starch ka naqanaysa ama isku dhigaysaa so cube kaasi to biyo kulul ku daraysaa biyaha marka maaragtay ku bislaado waa la soo dejinayaa kadibna waa jarjareena ayadana oo ansalaatada hadhow dusha kaga dari doona ama saladka qof walba sidoo u yaqaano waxa kale ku xigo oo nala baraay maanta waxay ahayd cucumber sida loo jarjaro cucumber-ka laba qaab u jarjaray mid maaragtay sidii maxaa la dhahaa wareeg oo round ka u jarjaray qaybna wuxuu u jarjaray half xidig camal xidig taafkeeda kadib barbarooniga ku xigo dadka qaar oo isweydiin doonaan ninkaneet waxaan la barayo wuxuu yahay oo maaragtay barbarooni iyo karooti iyo sida loo jarjaro waxa waxyaabaha ugu muhiimsan waa 3 saacadood imtixaan aan sugooyo waxaan uu isaga sameynaa inaan sameeyno waay dhaxda wax ku jira inaa ka bixisid marka barbaroonigii haddana ku xiga kadib anaga hadhow gadaal kala wareegayno waxiin unta soo dhan inta isku dardarno ansalaatada waxa ku dareenaa wax yar oo maaragtay olive iyo wax yar oo waxa ku dareenaa maaragtay olive zaytuun waaye barbarooniga u jeedan Soomaha markuu jaro wuxuu la ekaysiinayaa digirtii hadaatay aan sameeynay dhaxdu ka kala goonaya inay isla ekaadaan la rabaa inay kala dheeraadaan la marbo waa sababta kalaaskan essential uu yahay oo muhiim uu yahay kadibna waxa uu sii gudbeena ardaydeeni ina maaragtay saxanka qurxino yani saxan qurxinta waxyaabaha ugu muhiimsan presentation laha presentation kii la soo jeedinaa ma presentation kan waa wax presentation aan dhahayno saxanka qaabka loogu ridaayo iyo waxyaabaha soo dhan kadib barbarooniga markuu jarjaro wuxuu ku ridanayaa meeshan maaragtay baaquli ama waxaad ku keedsanaysid sida u jarjarayna u jeedaa mindida hal mar gaf mooda siinaysid hadhow shape-ka ka halaabay shape-ka waxa la rabaa inuu u yara ekaado digirtii oo maaragtay meesha noo saarneed kadib bardhadii oo bislaatay uu soo qaaday sida u jarjaraa u jeedaan dhaxdu ka kala goonaa and then cubes u kala goonaya oo si isla eg inay ka weynaato lama rabo inay isla ekaataa la rabaa waa waxa ugu muhiimsan oo maaragtay maxaa la dhahaa dhow laga fiirinayo kadib qaybteen yaa la gaaray ukuntii aan soo jarjaranay wixii sidii isaga sameynaa soo jarnay kadibna waxa u sameysanaynaa wax yar oo salad dressing waxaas meesha ku jiro waa maaragtay vinegar iyo wax yar oo saliid maaragtay olive oil iyo wax yar oo cusbo iyo wax yar oo maaragtay maxaa la dhahaa malab saxankeygii ugu horeeyo saana usoo diyaariyay oo qurxan yahay liir laakiin waa buuxisay hooyaday waxa ka maqli jiray wax walba dadka umada waxa ku yareen intaan isdhahay umada ku yareen hadiir waa buuxisay gabadhan sidoo kale ayadana waa buuxisay qofkan isaga sidoo kale wuu buuxiyay saxankii uu quruxda badnaa waxa la siiyay maaragtay mid kamid ardayda nala dhiganaysay I think saxanka ku xiga waa yes kan waaye oo maaragtay hadda ay tusinayo kana number 1 noqday oo macallin credit ka siiyo ka helay so isaga maxaa la dhahaa xakam ahaa kadib kalaaskana sidaas oo ku soo dhamaaday ardayda sanadka labaad oo maaragtay semester 2 ardayda ee cunto ee soo sameeyay ka hartay waxaan la yiri kaalay cunto ee maanta naajikada ku jirteen cuntadoodii soo qaadanay cunto Asian ahayd I love it was really nice saxankii aan soo buuxsaday kadibna isla kalaaskii boorsooyinkii wixii noo yaaleen inta u fadhiistay beerka ka tago mafaantay aftan inaba caadi ma ahan waliba mid geedkan yariiska oo maxaa la dhahaa koobka ku jira ka helay oo aad u macaana wax yar oo iska macmacaan u ahaa kadibna kalaaskeeni iyo waxaani oo dhan soo dhameysanay cuntada ku soo gabagabeynay was 10 waxay ahayd maalin qurux badan ay ahayd alxamdulillah rabbil caalamiin halkaas oo noo soo dhamaaday kalaaskii waxaan maaragtay idin leeyahay waa ku mahadsantiin daawashada muuqaalka vlogeenina halkaas uu ku egyahay aad kaga mahad celinaya daawashada muuqaalka haddii aad dhamaadkii ilaa halkan ila soo gaartay
waxaan kaa codsanayaa muuqaalka inaad saaxiibadaada u sheer garayso like-na aad saartid insha allah intaan muuqaalka xiga ku kulmeyno waxaan idin rajeynayaa bashbash barwaaqo iyo badhaadhe iyo maal tiro badan insha allah waxaan idinkaga tagayaa fi amaanillah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh